gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wicid injineer Faysal Cali Waraabe oo caawa ka qayb galay dood lagu falanqeynayay takoorka ay bulshada dhexdeeda kala kulmaan beesha Gabooye ayaa sheegay in aanay jirin wax takoor oo badan oo beeshaasi ay kala kulanto Soomaaliland dhexdeeda waxaana uu gudoomiyuhu ugu baaqay siyaasiyiinta beeshaasi ee ku jira xisbiyada mucaaridka inay iskaga baxaan gabi ahaanba asxaabta mucaaridka ee Soomaaliland taa beddelkeedana ay ku biiraan xisbiga kulmiye si buu yidhi ay u helaan xuquuqaha ka maqan Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wicid waxa uu si gaar ah farta ugu fiiqay oo uu talooyin u soo jeediyay afayeenka xisbiga mucaaridka ah ee wadani Barkhad Jaamac Batuun markaa horta bahasha cid isticmaasha anoo ma yaabsanahay dadkana waxba la xumeeyay horta ma jirto dhixdii halka waxa laga doortay shuuriye ayaa laga doortay reerkiisu ka helay waxaan isku geegalay jiray on saaxiib ahaan inamo heeshan ka soo jeedo kadib waa saxadiid baa ilaahay oo injineer Mareykanku joogaa maanta markaa waxa weeye maxay inagu meesheena umba laga hadlaa meesheena maxaa looga hadlayaa waxa weeye inagu waxna ummadda qura ee xumaanta iska qabata inta war jooji kuwa kale kama hadlaan iskama qabtaan taas waa inagu focus-kana saaran yahay waxa weeye dadkan u ordo badana beesha naftoodii u ordaya ka run maaha laakiin hadda imaka laakiin dhalinyartan imaka hadday sameeyaan dhalinyartan imaka hadday pressure sameeyaan oo iska baxaan xusbiyada ka baxa idigu qadiyad baa leeyihiin tiinan aan dilo fiixnay xusbiyadan idaacayeed idigu soo daa iska baxay mucaaridka ina guriga imaka ah wasiirka lana biigu yimaano insha Allah una xaflad gurigii saaqa laygu casuumay kaas waa koo mucaarid waxaan ku dhawaad idinku mucaarid iska daayo kulbad dawladii joogta arintiina ka soo kaamiya sidii buu yeelo wakii wasiir ku-xigeenka laga dhigay haddii aad dawladii markaa ruuri baadhigii aad mucaarid u noqotid xagga mucaaradka xog siin doona akademiyadeen xoojinina barkana waxaan ku soo biray akademiyada afayinka wuxuu cirka ka xishooday isagoo oranaya dhexda waqti wixii ka baqo wuxuu cirka oran lahaa ayuu isagoo oranaya adu akademiyada waxa daawado marka waxa weeye insha Allah taala ummadda waxaan wanaag isfarisa waana aad iyo aad u habaysta oo wanaagsan yahay Cabdi Jabbaar Maxamed Xuseen telefishinka Ariel Hargeysa.